arday mulxid ah oo urdun u dhashay ayaa asigoo allah ku caasinaya dhahay haddii uu allah uu jiro nafta iga qaado hal saac kadib subxaanallah daawo ciqaabta ninkan ku dhacday iyo qaabka foosha xun ee uu dhintay si aan u bilowno qisadan la yaabka badan oo dhammaystiran fadlan haddaan uga cusubtaan ugu soo biir muuqaalka like saar siina sheergalay si asxaab badan u gaaro mahadsanidin dhammaantiin qisadan waa mid waaqic ah oo ka dhacday waddanka Urdun waxaa jiray wiil Carbeed oo dhiganayay mid kamid ah jaamacadaha waddanka Urdun wiilkan maalin waxa uu ka istaagay fasalkiisa asagoo saacad gacanta ku haayo oo eegaya waxa uuna dhahay إن كان الله موجودا فليمتني بعد ساعة waxa uuna dhahay haddii uu allah jiro aniga nafta iga qaado hal saac kadib subxaanallah waa arrin la yaab leh waxaana maqlayay warkiisa arday macallimiin badan wayna la yaabeen wiilkan waqti kadib markii ay dhammaatay saacadii uu sheegay in haddii uu allah uu jiro nafta ka qaadi doono waxa uu bilaabay jees أرأيتم لو كان الله موجودا لأماتني waxuuna asxaabtiisii ku dhahay ma aragtaan haddii uu allah jiri lahaa nafta uu iga qaadi lahaa subxaanallah ardaydii dhegaysanaysay wiilkan waxay noqdeen kuwa uu shaydaan waswaasiyey iyo kuwa la yaabay oo dhahay allah ha ku hanuuniyo laakiin wiilkii waxa uu gurigiisii aaday asigoo faraxsan waxuuna moodayey inuu daliil caqligal ah ku caddeeyey inuu allah u jirin oo bani aadam kale iska abuuray oo aysan rabbi lahayn sidoo kale waxa uu beeniyey inay jirto maalinta la isxisaabi doono ee qiyaamaha wiilkii waxa uu imaaday hooyadiisna waxay u diyaarisay cunto waxayna cuntadii ku soo diyaarisay miiska cunnada wiilkii waxa uu aaday tubada guriga si uu gacanta iyo wejiga u soo dhaqdo wiilkii markuu soo dhaqday gacmaha waxa uu ku dhacay dhulka wax dhaqaaq ahna ma yeelan sidaas ayuu ku dhintay wiilkii markii isbitaal la geeyey meydkiisii si loo baaro wax sababay dhimashadiisa waxa uu dhakhtarkii caddeeyey oo uu ku sheegay in dhimashadiisa ay sabab u tahay biyo yar oo dhegta ka galay والمعروف علميا أن الحمار أعزكم الله إذا دخل في أذنه ماء يموت sida cilmiga ah oo la yaqaan dameerka ayaa u dhinto biyaha dhegta ka gala waxaana wiilkan ciqaab looga dhigay inuu u dhinto sida dameerka أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سبحان الله اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم dhacdadan halkaas ayay ku eg tahay muuqaalkanna waxaa laga baran karaa cawaaqib xumada ay leedahay in allah awoodiisa lagu jeesjeeso daawade haddii aad kamid ahaan lahayd ardadii uu ku dhahay ilaahay ma jiro awoodna ma lahan maxaa samayn lahayd aragtidaada barta faalada nagula wadaag muuqaalkanna asxaabtaada gaarsii si ay u arkaan ciqaabta wiilka mulxidka ku dhacday mahadsanidin dhammaantiin